waxaan aad ugu mahadcelinayaa qolyaha miidiyaha ee saxaafadda ka soo qayb galay barnaamijka naga caawiyay iyo shacabka tirada badan ee caawa soo buux dhaafiyay howlka xafladda sanad guurada 14aad ee dowladda Puntland lagu qabanay magaalada Kuala Lumpur oo nasiib u yeelanay inuu nagala soo qayb galo fanaanka weyn Axmed Biif oo martino waa magaalada Kuala Lumpur mar labaad iyo mar saddexaad aad baan iga mahadcelinayaa dhammaantiin shacabka weynaha meesha soo fariistay iyo safaaradaba madaxda safaaradda iyo waliba qolyaha miidiyaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh safaaradda sideeda waxa loo furay isku xirka Soomaaliyeed maadaama arday halkan u badan tahay waxaanu jeclaan lahayn in ardayda isku xirmaan ayagoo samaysanaya ururo xagga tacliinta waxaan halkan hambalyo ka dirayaa baarlamaanka cusub ee la dhaariyay ee naga saaray kumeel gaarka waxaan kaloo hambalyo u dirayaa dowladdii TFG-ga ay ku guuleysatay inay naga saarto temporary-ga ee aan u gudubnay muxuu federaal caawa waxaan halkan kaga qayb galay xaflad si qurux badan loo soo agaasimay ay dhalinyaro isxilqaantay ardayda reer Puntland oo muujisay Soomaalinimo shucuur Soomaalinimo halkan bismillaahir rahmaanir rahiim safaaradda Soomaaliya ee Malaysia waxay u furan tahay ummadda ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia waxaana mar walba la garab taaganahay ardayda Soomaaliyeed wax walba caqabado ay kala kulmaan wadanka Malaysia dhanka xagga jaamacadooda ha ahaato ama immigration ha ahaato ama airport ha ahaato mar walba waxaan la socodsiinaynaa ardayda Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Malaysia in ay la soo xiriiraan safaaradda si aan u ogaano dhibaatooyinka caqabada ee ka haysto wadanka Malaysia waxaana kala xagan ugu mahadcelinayaa mahad qaas ah xafladani maanta caawa ay ugu martiqaadeen ardayda Soomaaliya ee ku nool wadanka Malaysia qaasatan ardayda Puntland oo maartay si aad u soo qaban qaabiyay mahad qaas ayaan oo safaaradda ugu martiqaaday waxaan ugu mahadcelinaynaa ardayda qaasatan gudoomiyahooda Maxamed Aadan saddex nin baa intii laga soo xiray indhaha baa waxa la yiri maroodi baa la yiraahdo oo weligiina arag bal raba in leedan taabsiyo indhaha idinkoo ka xirantiin nin walba uu cabir maroodigu wuxuu yahay hadhow ka sheekay markii indhaha laga furo markaas waxa la yiri saddex ninba nin wax laga taabsiyo saynta nin wax laga taabsiyo sanka hore dheer nin wax laga taabsiyo caloos saas u qaado ruux culusa hadhow mid walba ka sheekay baa mid walba wuxuu ku arkay kalxiis maroodi qeex baa leeyahay maroodi wuxuu yiri wax caata ila dabada ka taabtay oo aad u dhuuban oo bilaha bira midna wuxuu yiri bahal laba jilicsan waayo oo bahalkiisa u dhuuban weeyay ila sanka ka taabkay midna wuxuu yiri war maroodigu waa adoog adduunkan kor u taabtay wiil la caloosha ka qaaday moogta ka taabtay marka waxa weeye bini'aadamku waxay leeyihiin marka qof walba ama ummad walba waxay leedahay si wax u cabirto oo maxaa la yiraahdaa ay wax ku cabirto moogta inagu marka Soomaaliya hadaynu nahay markaynu aqoon cabirayno aqoon caaw markaan ku raac cabir yacnaha waxa laga yaabaa inay raad badan kugu sameeyaan because waxa aniga xasuustaa iyadoo la yiraahdo reedahay ciyaalkii meesha xagee aad meesha baaso la lahaa biisadii baa la biisa loo inta biiso ma aha wax barasho waxa biiso baa la oran jiray habru waxay leeyahay waxa biiso waxay ka fikiraysaa cunugu inuu ka gaaloobo wax daran in looga dhigo waxaas ka aaminsanta waa iskeelada wax ku cabirayso ayadoo markaa kafada wax ku cabirayso waa inay wax biisa tahay wax barasho inaga waxa nooga qiimo badnaa haddaan dhaqankeena si fiican u adres gareyno in qofka askari noqdo askari inuu noqdo nooga qiimo badnay la yiraahdo oo wiilka askari buu qortaa leeyahay hebel askari buu noqday oo moogtahay lacag loo doonto halka la aado wiilka askariga ah halka ay wuxuu joogaa ma dhawa ee lacag loo doonto laakiin qof wax bartay oo lacag loo doonto anaga ma aqoon moogtahay qof wax bartay oo ku faana ma aqoon idan marka waxa weeye inagu marka aan niraahno wax barasho maxaynu wax ku cabiraynaa value ama qiimaha ay ka leedahay qofka Soomaaliga ah dhaqankeena marka dib ugu laabano maxay waxa soo baxaysaa okay wax barasho okay wax barto wax u bartay waa doctor marka laakiin anaga qiimo weyn nooma la xaqiiqatan culture-keena markaynu runta ka sheegno waxa qiimo weyn nooma lahan dhammaanba reer Malaysia gaar ahaan kuwa Puntland oo uu gudoomiye u yahay saaxiibkayga garabka midig taagan Maxamed waxaan leeyahay welcome waa dhawahay sida sharafta iyo karaamada ay ku jirto aad noo soo dhaweyseen aad baad ugu mahadsantihiin waan ku faraxsanahay sanad guuradii 14aad ee Puntland waxaan nahay ardaydii soo qaban qaabisay waxaan mahad u celinayaa sidaad uga soo qayb gasheen xafladaas sidaad u qurxiseen waxaan mahad weyn iskale Allah mahad xigta waxa iskale gudoomiyaha Puntland Maxamed Haami assalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdirasaaq Sugulle
waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda sanad guurada 14aad ee dowlad goboleedka Puntland